Qaniinyada maska waa mid ka mid ah waxyaalaha halista gelin kara naftaada kuguna keeni kara xaalad degdeg ah. Waxaa kula wadaagi doonaa 8 waxyaabood ee qasab tahay in la sameeyo ka hor inta aan qofka loo gudbin xarun caafimaad. Waxa waaye qofka in meesha maska uu ku qaniinay laga fogeeyo oo sababtan waxay tahay waxaa laga yaabaa adigoo isdhahayo qofka maska qaniinay caawi in maskii area ama halkaas uu ka dhow yahay mar kale adigana uu ku qaniino ama qofkii inuu kusoo laabto naftirkiisa oo qaniino. Marka qofka laguma caawiyo isla goobtii maska uu ku qaniinay. Saas darteed qofka ka fogeey ama ka wad meesha maska uu ku qaniinay ka hor inta caawinta uu sameyn. Qodobka labaad marka meesha qofka ka fogeyso oo meel xoogaa u jirtay oo kala aagayso. Waxa waaye qofka u sheeg inuu isdejiyo. Marka qodobkan labaad faa'iidadiisa waxay tahay haddii qofka aad u stress oo naxo waxa ka dhalanaya in heart rate-kiisa ama garaaca wadnihiisa aad u ziyaado. Garaaca wadnaha hadduu aad u ziyaadana waxa aad u ziyaadaya blood pressure-ka ama cadaadiska dhiigga ayaa ziyaadaya. Cadaadiska dhiigga hadduu ziyaadana taas waxay sababaya in suntii ay u fududaato in dhiigga si degdeg ah jirka oo dhan ugu faafo. Marka qofka u sheeg inuu isdejiyo si suntaas si degdeg ah jirkiisa aysan ugu faafin. Qodobka saddexaad waxay tahay oo u sameynayso qofka fariisi kana fur waxyaabaha ku dhagan sida saacad oo kale hadii ku dhagan tahay faraanta oo kale katiin oo kale qoorta ugu jirto dhar ku dhagan oo kale hadii uu wato sababtoo waxyaabahaas waxa laga yaabaa qofka maskan qaniin dartiis suntaas jirka gasho qofka inuu hore ka barara laga yaabaa jirkiisa oo bararo. Saas darteed waxyaabaha ku dhagan oo dhan oo dhibka keeni kara ka fur markaas oo xaaladda lagu jiro ka fur wax kasta ku dhagan saacadii katiin iyo faraanta wax la mid ah oo jirkiisa ku dhagan oo tight ah ka fur. Waa qodobka saddexaad. Qodobka afraad waxa waaye sida hortiina ka muuqata qofka waxa u xirtaa faashad ama maro nadiif ah meesha nabarka iyo korkeeda wax loogu xiraan waxay tahay xoogaa ku adkay sababtoo waxay tahay waxa laga yaabaa inay ka caawiso in suntii aysan gudbin oo ay ka hortagto. Laakiin lama ogola baashan oo hortiina ka muuqato tourniquet-ka loo yaqaan lama ogola in lagu xiro oo lama ogola sidoo kale dadka qaar baraf in la saaro waa qalad lama ogola way sameeyaan waa aad ay qalad u tahay lama ogola ayadana. Marka qodobka afraad waxay tahay faashadan ama maro nadiif hadda faashad heli karin ku duub meesha nabarka meesha ka koraysa aad ugu adkay xoogaa. Waa qodobka afraad. Qodobka shanaad oo muhiimka ah waxa ay tahay oo qofka inuu sameeyo ay tahay ka fogow qofka inaad siiso kafee ama alcohol hadda muslimaan alcohol naga hadda inta badan ma isticmaalna laakiin shuruudaha ay ka mid tahay inaad ka fogaato oo qofka aan la siin sababtoo ah waxaan ayagana waxay kor u qaadayaan pressure-ka cadaadiska dhiigga garaaca wadnaha ziyaada blood flow qulqulka aad u ziyaada taasna waxay sababay in sun si degdeg jirka ugu faafto. Marka kafeega iyo waxyaabahaas qofka lama siiyo xilligaas oo kale alcohol iyo khamri wax la mid lama siiyo waa laga ilaaliyaa. Qodobka lixaad ha isku dayin inaad disho maska tan khatar ayay u gelin kartaa waxaa laga yaabaa qofka maska qaniinay adoo ka agdhow maska markuu qaniin inaad aragto isku dayin maska inaad disho adna ku qaniino marka naftaada oo khatar gelin karaa ha isku dayin maska inaad disho kaliya qofka fogey. Marka qodobka lixaad ha isku dayin maska inaad disho laakiin maska oo dhintay haddaa aragta ama maska qof kale oo dilay tusaale adiga ka horreeyay maska oo dhintay aragtay maska inaad qaada ayaa fiican oo qofka marka xarunta caafimaadka u qaadaysa la qaada maska meesha gees sababtoo noocyada maska way kala duwan yihiin suntooda way kala duwan tahay xalkooda wuu kala duwan yahay sida loo xalinayo marka nooca maska ku xiran tahay xitaa khatarta qofka intee la ekaan karto. Marka haddii uu dhintay ayaa aragto waxaa fiican adoo taxadiraya inaad qaado oo xarunta caafimaad qof markaa qaadaysana hore u qaado. Qodobka lixaad waaye laakiin maska adiga isku dayin inaad disho marka hore. qodobka toddobaad waxay tahay qofka u qaad xarun caafimaad intaas markaa u sameysay aan soo sheegay 6 qodob. Qodobka toddobaad waxay tahay qofka baawur ama waxa heli kartaa ama ambalaas uwac isla markii horta aragtay ambalaas la markeeda ahayso way fiican tahay hadii ay hayn ama ambalaas hadda wadankan oo kale aad active uma ahna ama gobolada ama wax la mid ah aad uma shaqeysa marka baawur kugu dhow oo agtaada maray uwac qofkana ku qaad. qodobka sideedaad ugu dambeeyo adaan ku daayo comments nagu wadaag si aan kaga faa'iideysano waa ku maasantahay waqtigaaga. Assalaamu calaykum.